بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي aan saaxiibada ku nahay ee aan wada jirka ku nahay bartaan aan YouTube-ka ku leeyahay ee Shukri Musa Talent Channel. waxaan idin leeyahay waqti walbo aad joogtaan iyo meel walbo aad ku sugan tihiin, xilligu ha idin wacnaado hana idin wanaagsanaado insha Allah taala. mar kale iyo waa walaashin Shukri Degan oo idin wada barnaamij cusub. asxaabay sidaan horeba ugu ballansanayn waxaa jirtay sheeko aan soo geliyay oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo aan qaybteedii hore idin soo bandhigay barnaamijkii ka horreeyay. haddana waxaa idin sidaa oon rabaa inaan idin soo gudbiyo qaybtii labaad ee sheekadaas. ka hor intaan asxaabay aan u guda gelin sheekada, awalan waxaa mahadle Ilaahay isu keenay anigoo mar kaleeto idin horkiin keenay anigoo nabad qaba mar kaleeto. insha Allah taala waxaan rajaynayaa idinkana inaad sidaan u nabad qabo oo kale u nabad qabtiin biidnillaahi kariim. asxaabay intiini nala joogtay hore sidiini noola sii jooga insha Allah taala wax badan aan kala faa'iidi doonaa. inta nagu cusubna walaalayaal waxaan idinka codsanayaa haddaad nagu soo biirtaan in aad channelka rukumataan oo subscribe ka saartaan, gambaleelkana all ka dhigataan oo furataan si barnaamij walba oo aan bartaan soo geliyo oo idinkuugu soo dhaco insha Allah taala. intaa kadib waxaan rabaa inaan barnaamijkii sheekadii qaybteedii labaad aan guda galo. waxay hore noogu joogtay qaybtii hore gabadhii oo ninkii qabay xaaskii kale uu ku dul samaystay iyo carruurtii uu ku dul dhalay maxay ahaatay yaqiintoodii soo aragtay ee dul tagtay kadibna madaxeedii ka qaadatay ee gabadhii meeshii lagu furay ayadoo calool xumaysan ay dalkay ka timiday ee Mareykanka dib ugu laabatay. halkaas ayay sheekadu noo maraysay. xilligaas waxay ahayd 9meeyadii dhowr iyo 9kii ayay ahayd marka sheekadaas ay dhacday. gabadhii waxay ka niyad jabtay guur oo dhan. markii horena waxay ahayd gabar aan ayadoo yar guursanin oo maxay ahaatay ilaa iyo waqti soo gaartay. guur oo dhan ayay ka niyad jabtay ilaa iyo 2000 ma aanay guur iyo nin iyo shukaansi iyo guur soo hadalqaadkiisba meel iska dhigtay. markay la joogay 2001 inay ahayd baan u malaynayaa ayaa gabar waxay layn u sameynaysay iyada iyo maxay ahayd qoyskeeda oo qaar badan Mareykanka joogeen ayaa waxay isku soo hadal qaadeen inay layn u xareeyaan gabar walaashood ah oo lagu qabay magaalada Muqdisho oo carruur yaryar lahayd ilaa 3 canug lahayd in markaasna uur lahayd in maxay ahayd layn loo xareeyo. gabadhii baa maxay ahayd laynkii marka hore waxa aad qorato ayaa xagga ka soconaya wax la qortay ahayd. gabadhii baa maxaa la dhihi jiray laynkii la rabay in loo bilaabo. gabadhiina xaamil ahayd uuray lahayd. uurkii ayay gabadhii markii dambe laynkii intaan la dhihin imaada ee wadamadan geeska Afrika oo laynka la idinkaga xareyn karo ayaa maxay ahayd gabadhii dhashay. markay dhashana nasiib darro gabadhii sheekadu ku dhacday gabar walaasheeda ayaan ka hadlayaa waa ay umul raacday. markaan leeyahay canugii ma dhimanin wuu noolaa, wiil bay dhasho waana noolaa, 2 wiilna waa uga horreysay way u joogeen. laakiin wiilkeedii 3aad markay dhashay ayadii baa dhimatay oo umushii ku dhimatay. waxa ka haray carruur 3 kii ay markaas umushay oo ay ka dhimatay iyo 2 ka horreysay ayaa gabadhaas ka haray. Allah u naxariisto
ilaahay jannadiisii macaaniid ha ugu bishaareeyo way umul raacatay waxaan u malaynaa soomaalida si kalena inay u yaqaanaan in ilmihii markaas la dhalay markuu dhinto hooyadina ka daba dhimatay isla dhintaan ay umul raacasho u yaqaanaanna waa jeclahay laakiin ayadaa dhimatay ilmihii ma dhimanin halkaas markay marayso qoyskii gabadha ay ka dhalatay waalidkeed wixii ka noolaa iyo walaalaheed oo gabadhii ka mid tahay waxay go'aansadeen in sidii ay laynka rabeen inay gabadhaas iyo ilmaheeda iyo odageeda usoo qaadaan aanay waxba ka bedelin oo gabadhii inay dhimatay uun la sheego laakiinse gabar kaloo walaashoodahoo joogto oo kaleeto in ilmihii lagu soo daray laga dhigo sheekada intaasay go'aansadeen waxaa carruurtii ay gabadhii ka dhimatay gabadha la dhalatay iyo ninkii ilmaha dhalay ee gabadha ay ka dhimatay iyo gabar kale oo saaxiibadood ahayd ayaa la geeyey waddan ka mida waddamada geeska africa waxaa loo geeyey ninkani waxaa la siri ciyaalku waa yaryar yihiin keligiis nin ma hayn karo ilmo yaryar oo haddana qurbo yar oo qurbo nacasa la geynaayo maxay ahaatay gabadha kaleetana reerkan aad bay saaxiib u ahaayeen gabadhii dhimatay saaxiib ahaayeen tan nool maxay eeda guurkeedii hore ku hungowday ee laynkan wax ka waday saaxiib ahaayeen ehelka iyo reerka dhan bay si fiican isu yaqiineen marka gabadhan waxay ka dugsanayeen saaxiibtinimadii ayaga ka dhexaysay iyo gabadhii dhimatay iyo iyada saaxiibtinimadii ka dhexaysay ayay waxay u go'aansadeen in ayadana laynka looga faa'iideeyo oo walaalnimo loo wado inay walaashoo tahay oo kaleeto laynka loogu daro gabadhii dhimatay ilmaheedin ay iyada hayso saas camal loo wado go'aankaasay gaareen reerku gabadhii saaxiibadda ahayd iyo ilmihii gabadhu ka dhimatay iyo ninkeediyaa laysla waday waxa laysla geeyey waddan ka mida waddamada geeska africa halkaas oo looga xareeyay broses maraykan ah oo la rabo in carruurtan gabadhu ka dhimatay iyo aabbahood iyo gabadhan ilmaha usii haynaysa asxaabta marka horena ay ahaayeen gabadhii dhimatay iyo tan nool oo hadda barnaamijka waddaba maxay ahaatay ay saaxiibada ahaayeen in ayadana looga faa'iideeyo ilmahana ay sii hayso ilaa tan maraykan jirtaa intay timaado oo geeska africa soo degto ilmihii ma hayn karto oo waxay istiri adigu reerka usoo shaqeey soo biila istiri gabadhan ha looga faa'iideeyay maadaama gabadhii dhimatayna ay si fiican isugu fiicnaayeen saaxiibo ahayn adigana aad saaxiibo ahaydeen oo xaaladihiinoo dhan ay ka warqabto okay waxay ahayd 2001 markay 2000 aakhirkeedii gabadhu dhimatay 2001 aakhirkeedii adiga canugii yaraa oo sanad jira camal ayaa geeska africa la geeyey muddaa la joogay laynkii waxaa caddaatay inuuna soo dhoweyn oo maaragtay muddo uu qaadanayo haddana dalkii ku soo noqdeen ilmihii iyo gabadhii wadda iyo odagii dhalay mar labaad ayaa haddana 2003 inay ahayd baan filayaa lagu celiyey isla meeshii oo broseski u bilowday broseskii baa u bilowday gabadhan guurkii hore ku hungowday waxay ku xisaabtantay maanta inay iyadu gabar weyn tahay in ay suuragal tahay xataa ilaahay baa garanaya inayna owlaad damba dhalin inayna iyadu owlaad dhalin markaa quusma ayna taagnaynoo weli wax way dhali kartay laakiin waa isu muhatay waxay go'aansatay waxay istiri carruurtan walaashaa ka dhimatay ee yaryarka ah ee aad adigu habaryar rumaad u tahay maxay ahaaday kori oo halkaas geey oo ninkan aabbahooda ah ee gabadhu ka dhimatay si uuna naag kale intuu guursado ilmaha ugu keeno ilmahaas maaragtay ayna meel cad u noqonin oonan ilmahaas ay naagtaasi ayna ugu soo kornin niyad xumo ama haddii maraykan la geeyo ilmuhu aanay duurka u gelin adigu guurso ninkii walaashaa ka dhimatay si aad ilmaha walaashaa u dhaqaalayso oonan naag kale iyo rabsho kale iyo rafaad kale ayna isku arkin ma fahamtay taasay go'aansatay waana ay samaysay ninkiibay macnaha taladaas u soo jeedisay waana ku raacay laakiin nasiib darro
waxaa dhacday arrin kale oo ayaan darro ah. ninka asoo gabadha ballankaas ku raacay ujeedadiisuna ay tahay isaga iyo carruurtiisa in Maraykan la geeyo ayuu wuxuu hoos kala heshiiyey gabadhii kale ee gabdhahan asxaabta ay ahaayeen ee ilmaha haysay maxay ahayd asaga iyo ciyaalka iyo iyadu ay isla deganaayeen inay ilmahaas hayso reerkaana ay isku fiicnaayeen ciyaalka maxay ahayd reer habreedka abtiyaasha u ah gabadhii ilmaha dhashana ay saaxiibka ahaayeen ayuu hoos ka heshiiyey ninkii gabadhii buu mehersaday meherkaas gabadha reerkeeda wax qaar baa loo sheegay laakiin waxaa go'aan lagu gaaray reerkan processka wada ee ilmahan gabadhan habaryarta u ah iyo abtiyaasha in laga qariyo gabadhan ninkan inuu qabo asaguna go'aankaas waa la qaatay inuu isqariyo inuuna gabadhan qabin uu iska dhigo gabadhan sidii saaxiibtinimadii ay gabdhahan la ahayd inay ilmahan u hayso inay sidaas uun reerku u ogaado ilaa inta Maraykan laga tagaayo ayaa horta go'aan lagu wada qaatay gabadhii ilmaha haysay iyo ninkii ilmaha dhalay ee gabadhaasna u xeshay guursaday tii kale ee kal hore ku kala jabtay nin 5 sano ay biilaysay ilmahana habaryartood rumaad ahayd ee laynka waday ayaa ugu timiday magaaladii ay joogeen ee geeska Afrika ninkii wuu qabaa waa u mehersantah tan kale guriga joogta ilmaha haysay iyadana saaxiibada ay ahaayeen walaasheed dhimatana ay saaxiibada ahaayeen ninku waa qabaa waana wada nool yihiin oo ilmihii isla haayaan laakiin reerkaani ma oga gabadhan iyo wiilkan inay isqabaan gabadhan waxay u og yihiin gabar asxaab ahayd gabadhii dhimatay ay maxay ahayd saaxiibo ahaayeen gabadhan noolna ay saaxiibo ahaayeen reerka dhan is yaqiineen ilmahan u haysa saaxiibadeedii dhimatay daraadeed iyaduna u xilanaysa laynkan looga faa'iideynayo lagu wadaayo ee uma haystaan inay ninkii iyadu isla gadoomeen uma haystaan ay isguursadeen uma haystaan tan ciyaalka haysay ayadoo og oo ninku qabo oo la nool ayay gabadhaani markay dibadda ka timiday saaxiibtinimadii hore u matashay ninkii iyo gabadhii waa la isku mehriyay macnaa isma qabaan gabadha hore imaanaysa markaasaa la isku mehrin doonaa gabadha ilmaha habaryartoodoo laynka wada waa la isku mehriyey taajaa loo xiray ninkii baa lagu sawiray sawir oo macnaha inay ninkan naagtan isqabaan camal ah tani dhinaceeday ka taagan tahay malxiisad bayba u tahay ninkuna waa qabaa war ileen balaayo la arag gabadhii bayba malxiisad u tahay isku dhararinaysaa geeskeeda taagan tahay sawirka la gelaysaa ma garateen maxay ahaaday iyaduna maxay ahaaday meeshaba kama filan dhibaato kama filanine maxay ahaaday waxay u haysataa gabar saaxiibad ah maaragtay isku fiican yihiin beri hore asxaab ahaayeen walaasheedii dhimatay ay saaxiibo isku ruuxa ahaayeen ilmaha walaasheed inay macnaha saaxiibadeed ilmaheedii inay halkan ku hayso diyaar u ah oo iyada howl ka fududaysay iyaduna ay soo shaqaynaysay reerka biilka usoo dirayso iyaduna ay ilmaha usii haynayso laynkaana looga faa'iideynayo walaalnimo lagu wadaayo intaas inay u xilanaysay u haysataa laakiin xaaladdu waa si kale siday moodayso si aan ahayn baa wax ku socdaan laynkii siduu ku xaraysa reerkana ayadaa meesha kusoo biisha gabadhan saaxiibadii ay moodayso ninku qabo ilmaha ay habaryarta u tahay iyo ninka walaasheed ka dhintay iyadana hadda qabo kulli ayadaa soo biisha oo kirada gurigana ka bixisa soona biilisa intaasna waxay isleedahay ilmihii walaashaa yaan naa kale loo keenin adigu sababtaas ninka ku guurso ninkana naa kale bay iridda ka soo gelin ciyaalkan kaa kiirshaysa hadhow gabadhan asxaabta aatiinna meesha ha ku tagto doorkeedana hadhow waa iska gasho adiguna ilmihii walaashaa iyo ninkaagii la wareeg halkaasna ku dhaqmo walle adduunyo tale isuma kaa sheegto bini aadanna dad iyo duur waxaadan ka filaynaa kaaga yimaado marka la leeyahay ee dareenkaaga kala haaw waa sax waa xaqiiqa meeshii bay haddana dhowr sannadood fadhiyeen adiga sanad iyo bar 2 sano ku dhowaad bay meesha fadhiyeen processku socday alxaasil processkii bay ku baxeen 2004 waxay tageen Maraykan markii ugu horeysay waxa laga dejiyay
Virginia halkaasaa laga dejiyey gabadhii ilmaha haysay ee korinaysay ee saaxiibnimo inay ku korinayso loo haystay laakiin eedadood ama aayadood saa doontaba u dhahay qofba si u yaqaana Soomaalida lahjadu waa kala duwan yihiin ahaydo aabahood qabay iyo tii wadee habaryartood ahayd oo Minnesota waxay deganayd ayadu Virginia deganayd ee geysay reerka meesha guri baa la isugu tagay gabadhii ilmaha waday iyo ninkii iyo wixii meel baa la isugu tagay caruurtii muddo yar kadibna way tashadeentii caruurta soo haysay ee ninku qabay iyo ninka aniga caruurta ku kori aniga inta sano kula haaya aniga kan iyo kana aniga xaq le reerkan haddaan meeshan rabna aan ku nimiday waxay tiri waa fankulo waa ka gurinaa Virginia waxaan degaynaa Minnesota ninna waa iska nin moogtahay hadba naagti markaas faraha ku hayso maxay ahaday ayuu hadalkeedu socdaa waa ka ogolaaday waa guureen caruurtii iyo ninkii iyo naagtii uu qabay gabadhii uu qabay ee ku haysay Afrika laakiin reerkaanu uunan guurkooda ogeyn Minnesota hal mar laga degay inta laga guuray Virginia tii keentay ee processka waday ee meesha keentay waa fajacday waxay tiri war xagaad u guuraysiin war intee loo guuraa anaa idin keenay Virginia deganay Virginia joogaysiin maxaa qaldan alxaasil markaas ay warku cadaaday in ninkan iyo gabadhaan isqabaan ilmaha la keentay ee saaxiibtinimada lagu soo waday ee la islaha laynka looga faa'iideeyay ilmahan Afrika iyadu ku hayso inay mar labaad gabadhii ninka hore lugooya mar labaad haddana saaxiibadeed ay qiyaantay oo iyadoo og in jabkaas hore gabadhuna ma ahayn gabar moog ma ahayn gabadhan in jab hore ku soo dhacay gabadha saaxiibada ahayd ee gabadhii dhimata saaxiibta la ahayd ee tan noole keenaysa ilmahan iyo reerkan saaxiibka la ee ninka hoos ka guursatay maxay ahaday waa ogeyd gabadhan jabkii hore ku dhacay waa ogeyd dhibaatadii ay ninka hore ka soo martay ee 5 sano biilaysay iyo rafaadku u geystay way ogeyd xog ogaal bay u ahayd yaa haddana mar labaad ayay gabadhii saaxiibteed ahayd tii dhimatay ee iyadu aadka saaxiibka u ahaayeen walaasheed ahayd laynka lagu baxay Afrika looga waday Mareykan lagu geeyana ayadu samaysay ayay mar labaad qiyaantay mar labaad ayay qiyaantay gabadhii waaga ku bariyay waa labaysay laba una hortaala ilmihii walaasheed iyo gabadhii qiyaantay saaxiibta iskala dhigtay ee xag Afrika ku haysay lagu biilinayay laynkana looga faa'iideynayay iyo ninkii dhalay ilmahaane asaguna wax ka qiyaanay gabadhan ee laynka uun mar hanoo fuliso neefta la isugu celinayay iyadoo la ogyahay inay isqabaan iyagu is ogyihiin laakiin iyadu ay bari ka tahay inay ilmaha walaasheed iyo ninka iyo naagta uu qababa ay Afrika ku celisay tiraahdo anigu dadkan waa keenay waana ka tala baxay mas'uuliyaddeeda ma iga celiya iyo in ay iska ceeshaan Mareykan ku noolaadaan iyadii ninkan kala lug baxaan labadaas ayaa waxa ku dhacday gabadhii laba daran mid dooro waxay door biday ilmaha walaasheed oo dartood ay ninkan u gashay intii ay Afrika ku celin lahayd inay noolaadaan Mareykan joogaan wax ku bartaan asaguna noolaado gabadhii wax maxay asagii wax isla qiyaanay ee guurka hoos iska guursadana waxay iska helaan ay leeyihiin ay bartooda ku dhaafto iyaduna ay ka lug baxdo waa guurkeedii labaad oo khiyaano ku bilowday khiyaanana ku dhamaaday aad baan sheekadaas uga xumahay gabadhaasna mar walba sheekadeeda ma iloobo way igu taagan tahay waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa kornaageed kabbo isma dheera jabka qofkaas dumarka ah ee walaasha ah ku dhacay adigana waa kugu dhici karaa inaad ku faraxdana maaha balse waxaan sheekadan idinkugu soo gudbinaya bini aadanku wax walba oo isku tihiin inaanu gelin saaxiibtinimo iyo in maaragtay la aamino inuunan astaahilin inaad mar walba ruuxa bini aadanka ah inaad dareenkaaga kala haato ay tahay inaad mar walba ruuxa bini aadanka ah inaad ka taxadirtood iska jirta ay tahay
dad iyo duurba dareenkaa kala haw marka la leeyahay ciyaar ma aha waxaadan ka filayn oo dhan ayaa ka soo baxaya bini aadamku wuxuu u badan yahay danayste waxay u badan yihiin inay dantooda kugu gaaraan maxay ahayd adigana ayna dan kuu fulinaynin adigoo ay u jeedaan inaad lug go'ayso inay lug iyo laba kaa sii gooyaan inay iyaguna ku tala galaan ayay u badan tahay aadanuhu waa cajiib waana dhib badan yahay gabadhaas labadaas jeer ayay guursatay labadii jeerna khasaaray ku dhammaaday guurkeedu balse tan dambe waxay ka faa'iiday ilmihii walaasheed oo ay dartood ninkan u gashay islahayd yaana kale aynan mudanin in ay adlisti ugu noolaadaan maraykan meelay ka arkayso meel reerkii kaleetay abtiyaalihii iyo reerkii kale meesha oo gabadha dhimatay dhalay ee ilmahan waalidka u ahaa ay ka arkaayaan inay ku noolaadaan ku koraan maxaa la dhihi jiray ay indhahoodu is arkaayaan reerku ku faraxsan yahay gabadhoodii dhimatay ilmaheedii inaanay dayacmin intaasay ka faa'iiday laakiin iyada shaqsiyan noloshii ay islahayd adiguna nolol ka hel ilmahana yaynaa kale soo dhex gelin ee ilmaha walaashaa kori waa ku hungowday gabadhii ay islahayd saaxiibtinimo uga faa'iideeye keen meesha ayaaba ku noqotay bahal awrkii heryadiisii cunay oo dadkii walaalka ahaa oo wax kale ayna isu gelinay saaxiibtinimo kaliya isu gashay ee keenaya ayada meesha laynkaas uga faa'iideynaaye ayay mar labaad qayaano ku samaysay horena way u ogeed gabadhan dhibaatada iyo qayaanada ku dhacday laakiin maxaa kaa galay adiga danayso maxaa kaa qusay qof weligeeday jabi jirtay jab labaad u geyso ayay sheekadeeda kusoo dhammaatay gabadhaas halkaas ayay uga quusatay nolol dambe iyo guur dambe iyo nin dambe iyo in ay dad dambe aaminto intaba intaas ayaan rabaa asxaabay sheekadii naxdinta lahayd ee runtii marar dilaaca ahayd ee qof walba oo bini aadana ama gabar walba marka sheekadaas looga sheekeeyo ay dareemaysa xanuunkeeda inaan kusoo afmeero oon kusoo afjaro halkaasay sheekadii ku dhammaatay waxaan rabaa marka oon sheekadaas idinla wadaagay dad yahu bini aadamku waa bini aadam dad waa dad uun khiyaanana kama dhammaato dadka qof walbaa sidaad adigu yeeli lahaydaad ogtahay siduu ku yeeli lahaa ma ogid mana la socotid marka waxaan halkaas rabaa in tusaalooyin aad ka qaadataan bini aadamku inuunan aaminaad gelin in uunan saaxiibtinimo gelin in uusan waa ninkaagi gelin in uusan waa naagtaadi gelin in uusan maxaa la dhihi jiray qofkan intaasaa isla soo marteen uuna gelin in wax walbaa ka suura galaan in xataa jabkaaga hore qofku markuu og yahay uu kula raadinayo dibir labaad ama jab labaad inaad la kulanto una kaa nixayno dantiisa un uu kaa raacanayo in lagu xisaabtamo cibro qaadasho inay dadka u noqoto ayaan idinla wadaaga sheekadaas dhabka ah ee dhacday sheeko dhabaho dhacday waaye gabadhaasna ilaahay bedel khayr qabaha soo geliyo ilaahay bini aadan ha ka maaran siiyo ilaahay baa maxay ahda dadka faraj u fura ee aadanay waxba uma taro intaas ayaan rabaa barnaamijkeena asxaabay inaan kusoo koobo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa daawashadiina qiimaha iyo qaayaha leh ee mar walba aad ula socotaan bartaan aan youtube-ka ku leeyahay barnaamijyada aan soo geliyo asxaabay tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabaadiinada ee baha ahaato korkiina nabad iyo caano hala layska jiro cadaawaha ha layska jiro dadka laysku hadlaynaayo wax walbaa ka suura galee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu